horta kulligiina meel kasta joogtaan soo dhawaada marka waxaa galaynaa saa ujeedin cashirkan lasoo dalbaday waxaa sameynaynaa Windows 7 customization waxa la dhaho ku sameynaynaa oo yacni waxyaalo inaan ka bedelno waxyaalo ka delete gareyno waxyaalo kalena aan ku darno marka waxaa sameynaynaa saa ujeedin driverskana aan haysanaa drivers yaashan bluetooth waxaana soo sameeyay waxaa kasoo bixiyay drivers back solution kasoo dhex bixiyay drivers hadaa tagtiin kasoo koobiyay saa ujeedin Windows 7 halkan noo yaalo Windows update noo yaalo Windows update ka soo download gareynaysid aan tusina hal xabaa soo download gareynayna saa ujeedin marka kan gashid inta taabanaysa soo download gareysan kartaa wh download laha saa ujeedid Windows 7 64 bit waaye waa kuwana markii wixii ugu dambeeyay marka anaga waxaa rabnaa security updates u baahanaa security update kan labadana aad select gareysana kadib download taabana download saa ujeedid uu soo sameeyna wada saa ujeedin wixii dhan ugu dhameeyay marka desktop oo noo dhiga wixii download gareeyay hadda inta tagno ma inta noogu jiro ku laabanayna haddana mar kale downloaded haddana Windows 7 soo taabana 64 bit markasto ha iloobina meeshuu ku jiro saa ujeedin wuxuu ku dhex jiraa Windows 7 updates ku dhex jira desktop updates inta ku dhex jira saa ujeedid waa kuwana security hadaa sii dhex gashid waa kuwaas halkaas ku jiraan marka updates si loo soo download gareeyo waa idin bare waa kaas update ka kan noo yaalan programs ka hadaa rabtid folder sameyso program yaal u sameyso marka kana galeynaa kowii hore cajalad ahaan haduu ugu jiro sida loo sameeyo hadii desktop ka ku extract gareysid si loo sameeyo idin tusaa waxaa la dhahaa RT7 lite la dhahaa soo download gareysta marka select OS path hadaa aragtid maxaa laga wadaa folder ku jiro select garee hadii file aan aadidna waxaa waaye cajalkii ama meeshii ku jira cajal hadaa dooratid desktop ku soo dhigaa uu ku extract gareyna oo soo dhigaa meesha lagu sameeyna kadib hadeertan waxaa dooran kartaa isomia extract path meeshan waa dooranaysaa lagu extract gareyn lahaa dooranaysaa marka saa ujeedid OS path adheena anaga folder haysanaa folderkeena waa kana okay adheena marka saa ujeedin Windows 7 ka waxaa ku jirto afartaana ku jirto anaga waxaa dooranayna professional inta uu soo wadaa saa ujeedin marka sida halkan ujeedin waxaa noo yaalo Windows loader ka waxaa rabnaa marka programyaashan ku shubano drivers keena ku shubano waxaa leeyahay lahaa update keena ku shubano waxaa rabnaa in automatic ka dhigno Windows markuu ku shubabo automatic inuu uga dhigno maxaa lahaa inuu install gareeyo inaa uga dhigno automatic arabna automatic marka Windows aad tagtid maxaa leeyahay my computer aad tagtid my computer hadaa tagtid kadib aad aadid my computer properties hadaa tagtid Windows 7 waaye kan Windows 10 waaye kadib hoos hadaa fiirisid inuu ku dhaho genuine wax xasuus ku dhaho hadaa hoos tagtid inuu ku dhaho genuine kan Windows 10 waaye already waxaa waaye computerku ku imaado waxaa waaye active activated saa ujeedin Windows is activated marka saa ujeedin waa kana dad badan ay soo weydiin si loo sameeyo marka hadda kan computerkaada haduu yahay slow waxa la dhaho haduu computerkaada memorygiisa hadda waxa leeyahay processorkiisa wixiisa dhan hadii yar yihiin haddana programyaal badan wax badan ku furan kan slow noqona hadda kiiga saa ujeedid wuxuu qaadanaa adiga wax yar kadib 3 daqiiqo xataa ka yar inuu qaato laga yaabaa marka waxyaalo kale idin sii tusina marka intaas ka faa'iideysanayna marka inta kuwan hadaa kala gareysid kulli mid ka aragtid dooranaysa ilaa mid kasta aad u baahnid moogta hadaa kulli u baahan tahay extract garee anaga hadda saa ujeedid waa extract garee waxaa extract garee midkana extract garee lan kana extract garee waxaa tagay realtek kana tagay extract dhahay taas u baahnaa realtek kaas u baahnaa marka saa ujeedin kan waxaa waaye wh download kanna waxaa waaye RT7 lite launcher waxaa kasoo download gareysan kartaa online ka kasoo download gareysan kartaa
fileskaas aad ujeedid waxaa u baahan tahay keys.ini iyo waxaa u baahan tahay windows loader aa u baahan tahay. So online-ka kasoo download gareyso kadib waxaa idin tusinaa si loo dhexgeliyo folderkaana ka dhex sameyneynaa, folder kale kasii dhex sameysanaynaa haddaa sii sameysanaynaa oo folder cusub aa sameysanaynaa. Folderkaas waxaa u bixineynaa calaamada doolarka OEM aa u sameyneynaa calaamada doolarka. Haddana gudaha sii galeynaa waxaa sameyneynaa mid kalaa sii sameyneynaa folderka kalaa sii sameyno maxaa dheheynaa isagana 2 calaamad oo doolarka dheheynaa. mid kalaa sii sameyneynaa waxaa dheheynaa mid kalaa sii sameyneynaa oo waxaa folder kale folderkan setup aa u bixineynaa. folder kalaa sii sameyneynaa script aa u bixineynaa. So dadka si kale u sameeyaan way jiraan laakiin sidaan aa u sameystaa script aa lahaa. waa kaasa scriptiga markaa galno saa ujeedid file shaana soo download gareyneynaa kulli control C aa dheheynaa control V aa inta ku dheheynaa. So sidaan le maahan waxaa u qoreynaa command line aa qoreynaa. commandka markaa qorno kadib automatic asaa isku soo kicinayo wuu install gareynaa kadib. So sida hadda ujeediin waxaa sugeynaa inuu download gareeyo inuu sameeyo kadib taaskaa tegeysaa select all aa dheheysaa kadib select all markaa dhahdid waxaa rabtid aa ku sameyni karnaa. So kooda hore waxaa ka bilaabanaa integration waxaa yaalo driverska ku dareysaa waxaa ku dareysaa updateska ku dareysaa waxaa kale ku dareysaa maxaa lahaye softwaradaadi ku dareysaa. Featureska markaa imaadid removal games hadduu ku jiro ma rabtid adiga games ma rabtid sooma waxyaalo badan oo computerka waxaa ku jira sida waxaa laga yaabaa inuu ku jiro gamekan turubka adiga ma deyshid gameka turubka waa iska bixinaysaa waxyaalo badan oo u baahnayn. Tweaks waxyaalo badan aa ka bedeleysid waa tweakska waxaa ka bedeli kartaa markuu soo kacayo windowska waa aragtay waxaa yaalo backgroundka oo windowska waa aragtay saa u bedelo videoyaasheedii hore haddaa aragtid sida u bedelay. unattended waxaa laga wadaa wax oo yacni oo loo tegin ama oo yacni la taabanin windowska cajalada gelinaya asile is install gareynayo. So customizationkan waa isla arkaynaa logs filena log meel haddaa rabtid ediga dhigi kartaa logga waa arkaysaa wixii la bedelay iyo wixii lagu daraybo. So loading windows wuxuu dhahayaa loading image loading complete markuu dhaho aa fiirinayna marka waxa u baahan tahay oo kale meeshan saa ujeedid WH waa free kanna waa free waa soo download gareysani kartaa. kuwan waxaa soo download gareysani kartaa drivers back solution haddaa haysatid driveryaasha ku jiro aa ka dhex sameysani kartaa kadib waxaa dheheysa extract hal meel aa iskugu geysan kartaa haddaa rabtid. So aniga wax badan marabna drivers wax badan marabna so marka unattended haddaa rabtid in softwaradaada adoo arkeynin in la install gareeyo automatic haddaa rabtid so waxaa isticmaaleysaa waxaa lahaa universal switch finder aa lahaa. So downloadska haddaa tagno programs aa tagno waa kana. So hadda inta haddaa tagno oo aad taabsano kan camal driver boosterka midka ugu jeclaa inaa systemkayga gashto markasto. So hadda saa ujeedid waa soo copy gareynaysaa meeshaa gelinaysidaa paste ku dheheysaa automatic adoon ujeedin u install gareynaa softwareadan dhan aa ujeedid. So hadda ujeediin image weli wadaa so imageki hadartaan waxaa waaye loading markuu halkan geeyo wuxuu dhahaa completed. So sida ujeediin kadib waxaa rabnaa in aan sameyno so intuu wado waxaa sameyneynaa filekeeni aa qoraneynaa filekana qora waxaa sameynaa file aa sameynaa so halii dulqaato intaaba tegi karaa notepad intuu ii yaalaa. So notepad intuu ii yaalaa notepadkeena haddaa ujeediin waa kana. So waxaa ku bilaabeynaa echo waxaa dheheynaa off aa dheheynaa kadib intaa imaaneynaa title aa u sameyneynaa kadib waxaa dheheynaa PC house haddaa rabtid waxaa rabtid aa dhihi kartaa Cabdiraxmaan Maxamuud Jaamac waa dhihi kartaa PC house walaa waa dheheynaa PC house Windows 7 professional firewallkeyga wax block gareynayo so alaa waa dhahaa. So marka ujeediin professional aa kusii diri kartaa haddaa rabtid u extract gareeyo wixii sidaa ujeediin. So waa usoo laabaneynaa kan meel aa dhiganeynaa. So hadda saa ujeediin meeshaan aa imaaneynaa select all aa dheheynaa waa select gareysana wixii dhan way soo hal mare flash sameyn saa ujeediin integration aa tegeynaa marka koowaad integrationka waxaa kaasoo horeeya waxaa waaye
waxa kaasoo horeeya waxa hadda arkaysiin waxaa waaye meeshaan saa ujeediin meeshaanay isku xayeysiinayaan marka hadalkan saa ujeediin meeshaan aad adeena drive updates aa soo gelineynaa marka desktopka haddaan tagno waxaa noo yaalo updates waa kana kan koowaad aa soo gelineynaa oo ah Windows Internet Explorer oo haddana kadib waxaa gelaynaa meeshan kale waa ogtihiin 2 xabo inaa soo download gareynay haddana mid kale ku dareynaa kan hoosaa soo gelineynaa waa soo gashan kuwan driverskeena hadda way noogu jiraan marka driverkiyaa tegaynaa updatekay noogu jiraan adila driverskiyaa tegaynaa markaa tagno desktopka tegaynaa waxaa dhahaynaa LAN taabaneynaa LAN haddaan taabano waxaad kaloo taabanaysaa RT linka taabanaysaa waa kana waa soo gelinaysaa haddana waa tegaysaa meeshii gadaala u laabanaysaa kana tegaysaa midkan koowaad D linka tegaysaa waa sii gelaysaa old ma rabno laakiin new ga rabnaa waa kaasaa mid kasta saartida ugu dardaraysa saa ujeedid meeshaan real magacayaashii qofkii sameeyey iyo waxaas iyo ku sheegaa waa kana driver typeka waxaa waaye net waaye net inuu kugu xiro multiple haddaa rabtid wax badan haddaa rabtid inuu hal mar soo geliyana waxaa taabanaysaa LANka taabanaysaa kan camal hadda taabaneynaa okay adeena choose driver uu ku dhahaa wax yar kadib waa sugeynaa haddaa rabna ma sugeyno okay wax yar waa sugeynaa wax yar gadaal idinkugu celinaa si aan si fiican idin tusiyo gadaal haddaa u laabatiin folderyaal aa kusii jiraan folderkiina waxaa la rabaa aa sii taabatid data link waaye kan okay adeena kadib wax yar sug kadib waxyaalo badan markuu kuu keeno weli wuxuu wadaa cancel anaga iska dhahaynaa ma u baahnin marka application aa tegaynaa applicationkaa soo gelinayno maxaa waaye driver booster aa soo gelineynaa kanaa soo shidanaysaa marka kana u baahan tahay maxaa waaye magaciisa universal silent switch finder aa la dhahaa kaasaa u baahan tahay kan marka hadda inta tago waxaa dhahaynaa downloadskaygaa taga programs aa taga waxaa soo gelinaa driver booster markaa soo geliyo command keenuu ku dhahaa driver booster inta tegaysaa driver booster aa taabanaysaa driver boosterki waa kana intaa tegaysaa control A kulli waxaa waaye asagoo wixiisa dhan ku jira soo taabanaysaa control C aa dhehaysaa inta imaanaysaa control V aa ku dhehaysaa bis waa kaasa hadeertaan saa ujeedid silent switchka waa la geliyey namekii fileka intuu yahay wixii dhan waa kaasaa softwareka haddaa rabtid mid kale waa gashanin kartaa next maxaa marka futures aa tegaynaa futureska saa ujeediin accessories waxaan dhan aa ku jiro calculator adii mu baahan soomaa select garee calculator mu baahan yaa dhehaysaani haddaa rabtidna waa deysani kartaa anaga waa deysanaynaa maxaa kaloo u baahnayn paint mu baahnid paint qof u baahan ma jiro may qof u baahan ma jiro paint screen magnifier mu baahnid haddaa indhaha caadiga yihiin games haddaa mu baahnid gameyaasha ma wadeysid badi jes la dhahay iyo waxaan spacekaysa u samaysatid waxaana la sameeyaa speech support iyo waxaas dhan maxaa leelahay projector ma ku xirayso ma iyo people near me dadka ii dhow inuu ku tusiyo ma rabtid waa ka boodaynaa driveryaasha rabin waa ka bixin kartaa daaratid marka saa ujeedid waa kana apply aa dhahaynaa kadib wixii dhan waa laga bixiyey marka halkan haddaa imaano futureska waa kasoo tagnay waxaa imaanay tweaks hadda imaana tweaks maxaa marka tweaks waxyaalo badan aa bedbedelaysaa waxaa ka dhigaysaa powerka saacadoo waaye iyo desktopka maxaa in file laga delete gareynin iyo explorerka inuu wax tusinin explorerka haddaad rabin inuu ku tusiyo camalna wixii oo aa samayso mararka qaar windowska markaad tagtid marka kow aa soo furtid haddaa idin tusaa marka kow aa soo furtidba Windows 10 muxuu ku tusinaa folderyaashii aa isticmaalaysa dhan oo ku tusinaa saa ujeedid waa ka unblock gareyni karta meeshan waxaa dhihi kartaa ha itusinin camal wixii aa tagay programyaasha wixii dhan waa ka bedeli kartaa security haddaad tagtid antispyware maxaa laga hadlayaa marka antispywareka laga hadlayo waxaa waaye maxaa leelahay Windows Defenderka enable inaa ka dhigtid firewallka maxaa waaye enable inaa ka dhigtid disable aa ka dhigi kartaa serviceka waxyaalo qaar aa ka bixin kartaa BitLocker Bluetooth waxaas systemka haddaad tagtid systemka updateka xataa waa u sameyni kartaa default waxaa waaye wixii Microsoft usoo sameysa adiga laakiin waa ka bedelani kartaa saarate Internet Explorer aa hadda imaanay Internet Explorer haddaad tagtid waxaad dhihi kartaa default page haddaad dhahdid default page haddaad dhahdid enable custom haddaad dhahdid pageka ratid google.com aa dhihi kartaa google.com ama waxaad dhihi kartaa pchouse.com waxa adii rabtid aad dooranaysaa hadhow
custom registry haddaa haysatid oo yacni waxyaalo adig kugu anfacaya adi ahaan halkan waa soo gashani kartaa. So hadda kaas waa ka boodeynaa. So unattended aa lahaa kan. Unattended kan maxaa kugu saacideynaa inaadan computerkaada taabanin. So product keygaa ka keenaysaa. Product key haddaa tagtid waxaa jiro kuwa oo Microsoft ay usoo gelisaan bal ahaan inta iska gelgelinaysaa. Hadda product keyga ma u baahan. Ski baa dhehenaa. So activation ski baa dhehenaa. So accept aa dhehaysaa. Wixii yacni gacanta ku qori lahayd hadartaan sii taabanaysaa. Marka saa u jeedid waxaa taabanaysaa English uu hadda kan leeyahay bis. So select version to install uu ku dhahaa. Laakiin kan hadda hal xabaa ku jiro. So marka waa ka tegaynaa kan. Okay kan. So qofka computerka isticmaali doono magaciisa waxaa dhehenaa PC House. So computerkana maxaa u bixinaysaa jaamac. maxaa hayane maxaa leeyahay organizationkaaga maxaa waaye iskuulka waxaa rabtid aa dhehaysaa PC House iskuulkooda aa dhehaysaa. So auto login waxaa laga wadaa password uma sameynaysid. So haddaa rabtid user inaad u sameynin skip aa dhehaysaa. So administrator passwordna waa gelin kartaa markaas. Administrator markaas skip auto login marka skip user creation markaa dhahdid already waxaa ku dhisan Windowska administrator aa ku dhisan. Administrator kaasuu markaas u soo kicinaa automatic ahaan uu soo kicinaa. So markaasaa u jeedid passwordka aad gelinaysaa haddaad rabin inaa kan sameyso. Anaga kanaa sameynay jaamac iskuul hebelow. So computerkaada ayaa soo sameeyey. Waxaa soo sameeyey maxaa la lahaa shirkadda magaceed shirkadda Soomaaliya aa la lahaa. Support house-ka waxay sameeyaan 24/7 waaye. maxaa kale phonekooda maxaa waaye 123457 haddaa adiga leedahay meel company weyn haddaa leedahay logodoodan waa soo gashani kartaa. saartida adiga ka samaysani kartaa. So customizationkan haddaa tagtid meesha idin tusaya waaye. waxaa waaye waxaa ku jira wixii computerka ku imaaday. Screen saverka haddaa rabtid kuwaada soo gashani kartaa. So themes ay imaanaysaa kuwaaga soo gashani kartaa. Wallpaperka kaadaa soo gashani kartaa haddaa rabtid. Laakiin hadda kan Windowska ku jiro saa u jeedid kan hadartaan waxaa waaye kii Windowska intaad tagaysaa add one aa dhehaysaa kadib set default aa dhehaysaa. Log on saa u jeedin kan waa bedeli kartaa haddaa rabtid. So change log on screen aa dhehaysaa. Pictureadayda haddaa tago waxaa ka dhigani karnaa kanaa ka dhiganaynaaba kasoo qaad. So saa u jeedid apply aa dhehaysaa. haddana waxaa ku laabanaysaa meeshaadi. saa u jeedid gadget haddaa haysatid document file yaal haddaa rabtid oo markasta document file haddaa rabtid oo markasta yacni la socdo music haddaa rabtid markasta haddaa rabtid music inuu shidmado ama quraan hadduu rabo inuu shidmado markuu install gareynayo marka saa u jeedid waa ka bedeli kartaa. So media soundka waa kuwana waxaan errorka markuu dhaco wixii soo dhacabo hardware issues iyo waxaas optionkana u jeedid waxaa waaye Windows playerka markuu yacni hees ama wax lee markuu kuu socdaa dhegeysanaysid inuu backgroundka siduu noqoni lahaa waxaasaa ka bedelaynaa. So waxayna dhan hadartaan waa kana waa sameysanay. So marka hadda maxaa noo dhiman inaan dhahno apply aa dhehenaa. kadib apply markaa dhahno intuu kasoo bilaaba commit aa dhehenaa. repealed aa dhehenaa markaas repealed aa dhehenaa. So markuu repealed dhaho saa u jeedid integrating updates uu dhahoyaa update-kii uu gelinoyaa saa u jeedid alaa dhahaa. So update-kii uu gelinaa wax kasta waa arkay wuxuu sameynaya dhan intaa ka arkaysaa meeshaas haddaa ka fiirsatid. update-ka 3 ahaa haddaa xasuustid 3 ahaa 2 Windows iyo hal mid oo waxaa waaye Internet Explorer ah uu soo gelinoyaa saa u jeedid update-kii labaad update-kii saddexaad uu wadaa alaa waa dhahaa firewall-kana markas soo pop up gareynayo. marka hadartaan intuu shaqadan wado waxaa sii sameysanaa alaa waa dhahaa markasto. So marka saa idin tusinaya switchka waa kan waa ka bixinaa. So marka waxaa ku laabanaynaa meeshan waxaa sii sameysanaynaa maxaa lahaye filekeeni oo yacni kraaga soo hal mar soo kicin lahaa automatic ka dhigi lahaa soo sameynaynaa. So marka saa u jeedid professional aa dhehenaa. haddaa khaldanin ku jirto haddaa khaldanahay iska bedel dhib ma laha professional. So marka saa u jeedid waa kaasaa niyo bahalkan maanta dhan alaa waa dhahoyaa.
is bothering me. So marka saa ujeedid titlekii waa sameynay. Maxaa waaye waxaan maanta dhan allow. So waa fiirinayna so marka qaar waxaa waaye shaqada markuu wado inuu waqti dheer qaato. So waqtigiisa ha qaato marka. So waa sugeynaa marka. Okay, waa sii qoranaynaa marka. Filekan waxaa ugu talagalaynaa waxaa waaye inuu soo kiciyo. Wax yar ha lii dul qaato. Firewallkan bothering inuu sameynayaa marka waa ka bixinaa kulligiisa waa bixinaa wana exit aa dhahaa intuu cashirka socdo. Marka saa ujeediin waa qoraynaa titlekii waa qornay. Titleka PC House waaye oo korkaan ku qoraayo PC House Windows 7 Professional waxaasuu ku qoraa direct Windows jaamac Windows geedi waxaa rabtid ka dhigi kartaa. So marka halkaan imaano waxaa dhahaynaa echo waxaa waaye dheh wuxuu install gareynayaa camal installing ama wuxuu sug aa dhahaynaa sug wuxuu install gareynaa ama waxaa dhahaynaa sug wuxuu activate gareynaa Windowska fadlan. So intaana sii raacsiinaa kadib waa kaasaa. Markaas kadib waxaa dhahaynaa echo ina isticmaala ay fiicano echo aa dhahaa echo ama echo waa isticmaala echo aa dhahaynaa kadib hoos aa imaanaynaa echo off aa dhahaynaa kadib hoos aa imaanaynaa waxaa dhahaa percentage kadib waxaa dhahaynaa calaamadaana isticmaalaynaa yariista calaamadaana isticmaalaynaa so shift waxaas la qabataa baashiis waa ka xumahay so shift enter aan qabtay anoo shift laga rabo so calaamadaas isticmaalaynaa kadib waxaa dhahaynaa mdb waa dhahaynaa kadib calaamadaas waxaa saaraysa calaamadaas kale quotes kale laho waxaa dhahaysaa Windows loader windows.exe windows loader waxaa rabtida u baxsan kartaa so marka meesha anaga muxuu noo yahay windows loader uu yahay sooma windows loader so waa soo copy gareynaynaa kulli aa copy gareynaa so kulli markaa copy gareeyo waa kaasaa .exe markaa dhahdid haddaa tagtid kadib waxaa dhahaysaa calaama su-aalkii aan xiraynaa silent aa ka dhigaynaa silentiga waxaa waa inaan aragno marabno /pre-activate aa dhahaynaa pre-activate hoostaana imaanaynaa waxaa dhahaynaa od percentage waxaa kaloo dhahaynaa mdbo so markaas kadib enter aa dhahaynaa attrib aa dhahaynaa waxaa dhahaynaa -r -ar -s -h kadib waxaa dhahaynaa star dhibic star dhibica isticmaalaynaa star aa dhahaynaa enter aa dhahaynaa meel kale una keenaa shutdown aa dhahaynaa /restart timeka 5 second so kadib waxaa dhahaynaa r mdr /s/q markaas kadib waxaa sii dhahaynaa windows
windowska caadiga ka dhigayna windows ama meesha windowska actually waxaa dhahaynaa c drive-ka dhahaynaa c drive-ka kadib waxaa sii dhahaynaa slashdaas isticmaalaysaa windowska kadib waxaa sii dhahaysaa setup waxaa sii dhahaysaa script waxaa sii dhahaynaa scripts markaa sii dhahno script markaa dhahno waxaa kaloo dhahaynaa intaraa dhahaynaa script tiidaa kiiloobe intaraa dhahaynaa waxaa dhahaynaa exit marka saa u jeediin waadkanaa hadduu dhib jiro waa fiirinaynaa iyo hadduusa jirinba so save aa dhahaynaa marka inuu actually marabi inuu systemkeyga wax ka bedelo marabi marka windows aa soo shidaa waa baraaweynayna inuu shaqeynayo in kale so saa ujeedid waa kaasa waa koobi gareyni kartaa exit markaa dhahdi kadib save as aa dhahaynaa save as markaa dhahdid waxaa ku save gareynaysaa folder desktopkaaba dhiganaynaa desktopkaa dhiganaynaa waxaa ka bixinaynaa complete ama magacaa ratid oo baxsan kartaa install aa dhihi kartaa complete.cmd aa dhahaynaa desktopkaa dhiganaynaa saa ujeedid intaraa dhahaynaa save aa dhahaynaa save markaa dhahno kadib waa samaysana kan shaqada ninkaana weydiinayna saa ujeedid tanuu soo dhameeyey integrationki driverskuu geliyey wuxuu geliyey oo kale maxaa ladahaye updateskuu geliyey wixiiuu geliyey hadda components wuxuu ka bixinoyaa gamekaa ka bixine wixiiuu ka bixinoyaa marka wuu wadaa so kaas cajalad ahaanu inta usoo dhigaa marka dadka waxaa rabaa dad waxaa jiro aan rabin moogtahay maxaa ladahaye aan rabin maxaa ladahaa inay wax dhan ku shubaan driversi waxaas dadkaasna ayagana waa kanaa koodi waa kanaa kan wax kuma jiro windowskan weli wax ma lagu shubin so kii wax lagu shubay wuu imaanaa kadib waxaa ka dhigaynaa folder aa ka dhigaynaa kadib aa habeynaynaa so marka saa ujeedid kan haddaa furno hadeertaan waa ujeedaa so sidaa ujeedid waxaa sugaynaa markuu kan dhameeyo aa idinku soo laabana so marka sidaa ujeediin waa kanaa wuu dhameeyey shaqadii wuxuu wadaa hadeertaan inuu sameeyo imageki inuu sameeyo wadaa saving image uu dhahoyaa imagekuu noo save gareynaya so marka saa ujeediin meeshan waxaa ka qaldanaa hadda idin tusaa markaa idin dhahay ad aa isticmaalo saa ujeediin ma isticmaalin laakiin hadeertaan ad aa isticmaalay waa kana fileka saa ujeediin fileka hadaa loo baahdo xataa waxaa soo gelin karaa kanaa ka tirtiraa so hadaa la rabo waxaa soo gelin karaa senspace iyo meelahaas soo gelin karaa filekan hadaa u baahantihiin laakiin windows loader ma soo gelin karo meelahaas so windows loaderka onlineka ka raadsada fadlan saa ujeediin so marka kanaa baraaweynayna marka hadeertaan fileki waxaa sameynay folderkan saa ujeedeen waxaa kaloo sameynay scriptiga hadaa aragtiin waa kana fileka oo furi lahaa so filekan hadaa aragti windowskeyga hadeertaan aniga waxaa waaye waa active so machine aa fiirinaa marka machine aa raadinaa oo active ahayn so machine active ahayn aa raadinaa so waa soo raadinaa marka machine oo active ahayn aa soo raadinaa waxyar halii dulqaato hard drive-keygaa la imaanaa waa gelinaa mashiinkaa soo fureynaa waxaa gelinaynaa folderkan aa gelinaynaa folderkan aa desktop ka dhigaynaa kadib folderka markaa dhigno filekaasaa baraaweynayna folderka waxaa laga yaabaa hadeerta haddaa kan ku sameeyo waa ku duuboyaa waa ku sameyni karaa haddaa rabo wax ma ka bedelaayo marka waxaa waaye markaa ku duubo waxaa ka cabsanaa inuu restarting ku sameeyo computerka filekiina aa waaye aa duubayo so marka saving ku wadaa markuu saving sameeyo aa mashiinkina soo shido aa idin is arkeynaa so marka haddaa videoga la socoteen sida ujeedin meeshaan wuu dhameynaa shaqada markuu dhameeyo complete markuu soo qoro inta imaanaynaa meeshaan waxaa qabanayna create image haddaa rabtid inuu noqdo baan aa dhehaysaa image waxaa dhihi kartaa
So marka aniga waxaan samaysanayna create image aan dhehna, so finish aan dhehna, markaas make iso aan dhehna, make iso meesha ku sameynayna markaas tusa desktop ka ku sameynayna, waxaan u baxsanayna Windows 7 professional pro aan dhehna bas markaas shaqadii hadda soo wada. Waxaan fiirinayna filekeeni intaan gashanay, intaan dhex gashanay ujeedin waxaan soo koobi folderkeeni waxaan u yaala meeshaan sameynayna paste aan dhehna xeer hal dul qaato. So VMware toolska inaan ku shubo waa kooda hore, so toolska inaan ku shubo anoo toolska ku shubin xataa waan soo jeedin karaa dhib malaha. Options enable aan dhahaa, kadib waxaa dhahaya shared. So shared hadaa taabto malahan inaan install gareeyo waxaa lahay saa ujeediin product keyga hal maalina nooga dhiman. So marka waxaa taabanaa install dhahoya intaa taabanaa waan install gareynaa marka install gareeyo aan kula soo laabanaa. Marka saa ujeediin ugu dhameeyay inuu sameeyo isagii waa kana marka finish aan dhehna. Okay yes waa ka baxnay kan hadartaa ma baahnin. Kow marka aad shaqada sameynaysid waxaa sameysaa folderkan inaad sameysid kadib ku dhex dar kadib waxaa gashaa meeshaas automatic aa loogu daraa. So hadda softwarekeen hadaa galno gudihiisa saa ujeediin folderkeeni wuu ku jiraa waxayna wuu ku jiraa. So kanaa soo copy gareynayna marka waa isku dayeynaa inaan soo copy gareyno folderkan. Waxaa kasoo copy gareynayna meeshaan kasoo copy gareynayna marka waa fiirinayna markaas inuu noo shaqeeyo in kale. So sources aan galeynaa waxaan galeynaa kan control alt c aan dhehna kanaa galeynaa marka saa ujeedid kan hadartaan waxaa dhehna later. So paste aan dhehna folderkeeni wuu noo yaalaa intaa tageynaa waxaa dhehna waa kan sidaa ujeedid reactionkiina aragtiina rabaa wax kasto. So folderkeena halkaan uu yaalaa waa furaa filekeeni waa kana complete waaye. So meesha indhaha hadaa ku haysiin hal maalina nooga dhiman. So hadaa dhaho run as administrator waxaa dhacaya fiiriya wuxuu dhahoyaa sug wuxuu active gareynayaa
Windowska fadlan korna hadaa ka aragtid PC House Professional uu dhaho Windows 7 Professional. So shaqadii hada wadaa pop up aa soo kacayo, waxaa soo kacayo bahalkaana soo kacayo. So waa arkayna. So marka saa ujeedid wuxuu dhahoyaa inaad demisidaa lagaa rabaa kombiyuutarkaada ileen meesha waxaa ku darnay 5 second kadib inuu demiyo kombiyuutarka markuu soo daarmadana waa arkaynaa. Wax kuma jirayo saa ujeedid waa VMware waaye waa ku baraaweyneyne. Saa ujeedid wuu soo kacoyaa. Waxaan hada arkin waxaa waaye wuxuu ku xiran yahay Windows 7kan serverkayga oo wuxuu ku xiran yahay waxaas aniga ku barbarto serverka Windows Windows Server 2008 waaye kan update waaye. So inaan hal mar idin tusiyaa rabaa. So updaterkan wuxuu ii sameeyaa saa ujeedin kombiyuutaradan inta yaala dhan asagay ka soo codsanayaan updateka Windowska updateka hada kombiyuutarkaan idin tusinaa camal. So shaqadaas mid kale waaye cashir kale ka samayn doona administrator kana galeyna oo fiirineyna marka administrator 1 2 3. So screenkeena waa kana haduu activate gareeyay ogaada waxayna dhan waa successful. Sameyno automatic tan wuxuu ka dhigaa kan dhan ma arkaysid wuxuu sameynayo waxaa arkaysid waxaa la active gareynaya Windows oo ku dhahaa. So hada ku soo dhahoyaa sug waxaa activate gareynaya ka Windows fadlan. So cashirkeena halkaas ku egtahay. Saa ujeedin cashirkeena waa kana Windows ahaa. So marka koow aad bilaabaysid waxaa lagaa rabaa inaad ku bilaawdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.